komishanka doorashooyinka qaranka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xaruntooda waxay kulan kula yeesheen culimada diinka waaweyn ee dalka kulankaasi oo ujeedadiisu ahayd sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada waqtiga doorashada isla markaasina xil weyn la isaga saari lahaa ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka mudane Cabdiqaadir Iimaan Warsame afhayeenka guddiga doorashooyinka qaranka سعيد علي موسى iyo xubno ka tirsan komishanka halka geesta kalena culimada diinkii ka qayb galay kulankaasi ay kaga hadleen aaradooda ku saabsan sidii nabadgelyada la isaga kaashan lahaa isla markaasina doorashooyinku idanka Ilaahay ay dalka uga qabsoomi lahaayeen si nabadgelyo bil iyo 17 cishiyo 13 saacadood iyo 18 minute bay nooga harsan doorashadii 18 waxaad arkaysaa marka in kaadiga ay noo soo saaran tahay marka bal inaad ducaysaan inaad sidii caadadaydii ahayd dadkii aad wacdidaan wacdigii iyo diinigii iyo in la ilaashado amniga muhiimadda ugu weyn waxa weyn in amniga ilaalino xagga iyaga farsamo ahaan anagu diyaar baanay wax dhulka naga yaala ma jiro tacab badan baan soo gelinay habeen badan baan soo jeednay maalmo badan baan soo jeednay tacab yari muu gelin dhaqaale badan uu galay dhaqaale badan oo wax kale lagu xalil lagu sameyn lahaana uu galay tacabka iyo dhaqaalaha iyo soo jeedka iyo maskaxda iyo muruqa galay gunaanadkii baan doonaynaa inaad ku ducaysaan insha Allah waxaan jecelahay awoodda komishanka in dhinacyada laga galo oo sababtan culimada ugu yeeranay ee ganacsatada ugu yeeranay waxay tahay inaan noqono bombori hal xubin oo kaliya meel u wada jeeda oo inta shaqo sheegay amniga ilaashada marka taa in lafteeda la xoojiyo xiriirkeena iyo wada qabsigeena iyo iswaraysigeena oo sidoo kale wixii dhalin aragtaan aan noo sheegan deedna aan ka qancino oo marka laba ay noqoto in aanu khaldanahay oo aan dib soo noqono wixii saxno iyo inaanu saxnahay gacantiina u baahan lafteena taan warteen nimanka hawshooda waa dhameeyeen intaas ka dhamaan xukuumadda waa ognahay in hadallada qaar koodna la yiraahdo berigi hore xoona jireen qolkan isku xidhaano maxay qabtaan ilaa aanu soo saaray waxaanu qabanaynay oo dadka tusnay cidina ma aaminin cidina ma runtiina ma yarag laakiin markii dambe waan isxaqiijinay waxaanu qabanayno imikana tiibaa naga go'an hawshaas aanu diyaar u nahay oo aanu doonayno inaanu qabanno ilaahay baa naga og inaan waxa si daacad u sameeyno ilaahay nagu og yahay in aadmigu waa qaldami kara laakiin anagu inaanu daacad ka ahaan waxaanu qabanayno dadaalna deel dheeraadaan sameeyno intaasna khayr arrimaha ilaahay baa iska loo ilaahay baa hore wuxuu yiri qul illahumma maalikal mulk تؤتي الملك من تشاء إلهي بحيده إذاكم ما بحسان كمشوا ما بحيده أنا أقول ما بحنا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك تنزع ساسة مجليه كادو قلت لك شيء إن أنا مجلي مجلي كرو وتكسي بس ما تعبان كربا كادون تنا هذا قصاري إنه واحد لنا هو أسباب مش أنا لبا كرسي لقوم ترتمي كرسي بقى لقوم ترتمي هدي لقوم ترتمي صدق لما تنكو فريسين وأنا قاعد ما تدور شيء doorashadu way dhamaatay saddex habadii laga fadhiisay wallahi waa shakhsi idinka taa amaana la idinka doonaya inaad dhex noqotaan baa la idinka doonaya cadaalad cid soo saartay inaad soo saartaan baa la doonaya awoodiina inta aad kari kartaan inaan waxba kala harin ayaa la doonaya wixii idinka baxsan idinka ee awoodiina la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha waxa yahay annaga waajib ay noqotay nagama baryaysamba manaabirtiina waan idin haynaa bil iyo 17 ka cashay idin haray annaguna mikrofoonka nabadda ilaaliyo iyo cidda soo baxdo inta ku qanca ee kuma shug ku dhawaaqaan wax ka weyn oo adoon sameeyta annaguna warbaahinteena in inta idin gelino oo aan warbaahinteedii manaabirta inta idin gelino oo warbaahinteena caadiga ah ka hadalno oo ay dadaal badan saarno oo aan idin garab istaagno go'aanka marka soo saarta horta amnigeena aynu ilaashano taas weeyaan marka idinkana waxa la idinka baahan yahay cadaalad iyo sinaan iyo ilaahay sidoo ku og yahay inaanad saddexdaan nin ee kursiga doonaya inaanad u kala eexanin talidka doonaya mid kale waxa weeyaan bal waxa ku dadaashaan inaga waxayna dishaa natiijadan dib loo dhigayo bal caalamka la 24 saac baa lagu kala baxay bal bahashan bisha dhan raajinaysaan ee dabeedna la kala wada shaqeeyo ee la oranayo mid baa gubatay iyo mid baa la xaday iyo mid baa la waayay leeyahay war wixii waxa weeyaan hadaa gobol walba markii soo baxdaba aad ku dhawaaqdaan tirada isku geysta una tirahdaan balbahashana bisha dhan suugaysaan bal nagu soo ururiyo maalin iyo 2 iyo 3 wixii ba waa haysaanay bahasha ku dhawaaqa inta ma garanaysa aanay maartay kala kicin